السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي كل وحنا وناكسر كنا سعد وهذا برنامج كحكت مانتي ورك عالم كورقات تيوب قد بدأ وجوه وين البرنامج كنا مانتا كفلا قيد دوننا وحا كمدا ورarkii ugu dambeeyay shirka magaalada Djibouti maanta uga furmaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynaha waddanka walaalaha ee Djibouti ayaa ku dhawaaqay in kulankaas uu noqon doono mid guul u horseedi doona Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Hadaba maxaad kala socotaa qaabka uu ku yimid wada hadallada labada dhinac dalalka taageeriya kulankan muxuu yahay ajadaha madaxweyne Farmaajo uu kulankaas la hortagi doono maxay Soomaaliland ka qabtaa in markale la midowdo Soomaaliya Mareykanka iyo Turkiga oo hal arin ka doonaya madaxda labada dhinac Imaaraadka Carabta iyo xulufadiisa arintan sidee ay u arkaan maxaase ka jira in awood qaybsi Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu heshiin doono muxuu yahay doorka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaynu sidoo kale idin soo gudbin doonaa waxaynu ku ognahay waxa uu shirkan ku soo kordhi doono xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo hadda doorasho la isku diyaarinayo xogay macluumaadyo ka qarsan oo ku aadan wada hadallada Djibouti ka furmaya iyo guulaha laga gaaray midnimada Soomaaliya ayaan idinku soo gudbin doonaa maanta barnaamijka waana 14 bisha lixaad ee Juun maalinta Axada sanadka 2020 marka hore ku soo dhawaada wararkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabtay inay tallaabo military oo ka dhana Kuuriyada Koonfureed ay qaadi doonto haweeneyda la yiraahdo Kim Jong-un oo la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ku hanjabtay tallaabo military Sabtidii taas oo ku qaadi doonto dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. Haweeneydan Kim waxay rumaysan tahay in la joogo waqtigii xiriirka loo jar lahaa saraakiisha sarsare ee Kuuriyada Koonfureed isla markaana la qaadi lahaa tallaabada xigta sida ay ku waramayso wakaalada wararka ee Kuuriyada Waqooyi waxay ku dhawaaqday in ciidamada qaranka dalkaasi ay qasab tahay inay qaadaan tallaabooyinka xiga ee laga maarmaankaasi looga hortago cadowga oo ula jeeda dalka Kuuriyada Koonfureed waxaana ay sidoo kale hadalkeeda ku dartay inay burburin doonaan xafiiska xuduudda labada wadan. Hadalka gabadha la dhalata Kim ayaa waxa uu yimid saacado kadib markii madaxa waaxda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Kwon Jong-un uu shaaca ka qaaday in Kuuriyada Koonfureed ay si weyn u diyaarsanayso hub aad u culus oo uu ku jiro hubka ka hortaga nuclearka taas oo ay sheegeen inay keeni karto dagaal soo degdega. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in si weyn ay ugu careysan tahay kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay ku guuldareysatay inay joojiso wararka propaganda iyo warqado looga soo dirayo dhinacaas taas oo looga digayo Kuuriyada Waqooyi. Pyongyang ayaa ku dhawaaqday Juun 9keedii in gabi ahaanba la goyn doono isla markaana la xirayo dhammaan qadadka isgaarsiinta ee Kuuriyada Koonfureed ay lahaayeen. Hanjabaadan culus ayaa ku soo aadaysa xilli gabadha hadalka ku dhawaaqday Kim Jong-un la filayay inay bedesho walaalkeed hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi kaas oo xaaladiisa caafimaad si weyn looga deerinayay. Inkastoo dagaalka waddankaasi Liibiya uu sii soconayo haddana waddankaasi Turkiga maanta waxa ka dhici doona kulan aan caadi ahayn oo ay madaxda sarsare ee dalalka Ruushka iyo Turkiga yeelan doonaan. Wasiirada arrimaha dibadda iyo kan gaashaandhigga ee waddanka Ruushka ayaa maanta booqan doona waddanka Turkiga. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidaa shaaca ka qaaday waxaana ay ka wada hadlayaan arrimaha gobolka ay ugu horeyso arinta waddanka Liibiya. Wada hadallada ayaa lagu qaban doonaa magaalada Istanbul iyadoo oo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Ruushka Sergey Lavrov iyo wasiirka difaaca Sergey Shoigu ay booqan doonaan magaalada Istanbul kadib wada hadal ay qadka telefoonka ku yeesheen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan kuwaas oo ka wada hadlay in arrinta waddanka Liibiya si gooniya looga heshiiyo. Turkiga iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn ugu lugta leh dagaalka ka soconaya waddanka. Labada dhinac ayaa kala taageeraya kooxo iska soo horjeeda laakiin xukuumadda Ankara ayaa dadaal badan ku bixinaysa in Ruushka uu ku soo daba faylo xukuumadda Ankara si dalka Liibiya lagu hiiso dib isugu taago. Ruushka ayaa taageeraya Khalifa Haftar waxaana uu helinayaa dalalka Imaaraadka Carabta iyo Masar iyadoo hogaamiyaha iska soo abaabulay bariga waddankaasi Liibiya Khalifa Haftar uu ku jabayo dagaaladii ugu dambeeyay ee waddankaasi ka dhacay. Xabad joojin ayuu doonayaa hadda madaxweynaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin laakiin Turkiga ayaa diidan in hogaamiyahan uu dib isku soo abaabulo. Haddii Ruushka iyo sidoo kale waddanka Turkiga ay heshiis rasmi ah ka gaaraan dagaalka waddanka Liibiya arrintan waxay guuldarro u tahay dalalkii Carabta oo taageeraya Khalifa Haftar. Inkastoo dhawaanahan ay dhacayeen mudaharaadyo ka dhana cunsuriyadda gaar ahaan dilkii loo geystay George Floyd haddana waddanka Mareykanka waxaa laga soo sheegayaa in sargaal ka tirsan ciidamada booliiska uu toogasho ku dilay qof kale oo bulshada madow ka tirsan. Sargaal ka tirsan booliiska magaalada Atlanta ayaa toogtay nin la yiraahdo Rashad Brooks oo 27 sano jira kaas oo ku sugnaa goob maqaaxiya. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in caro kale ay ka dhalatay dilka qofkan madowga sargaalkii dilka geystay
ayaana la sheegay inuu iscasilay. hadda saraakiisha dimibaarayaasha ayaa wada baaritaanka falkan, hase ahaatee arrintan ayaa kor u qaadaya carada dadka madowga ay ka muujinayaan dhibaatada loogu geysanayo waddankaasi Maraykanka. waa hagaag daawadayaal, shabakada wararka warqaha TV ay nagala socotaan wararkii iyo warbixinada dunida ayaan halkan daawadayaal idigu soo gudbinaa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi sare uu hogaaminayo ayaa goor gaaray magaalada Djibouti ee waddanka Djibouti. sidoo kale waxaa dalkaas gaaray ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed iyo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland iyo wafdi sare uu hogaaminayo ayaa iyagana gaaray magaalada Djibouti. halkaas waxaa ka furmi doona kulan aan caadi ahayn oo u dhaxeeya madaxda Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland. kulankaas oo uu shirgudoomi doono madaxweynaha waddanka Djibouti ayaa noqon doona kii ugu weynaa ay isaga hor yimaadaan madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland. waxaa sidoo kale lagu casuumay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ethiopia Abiy Ahmed, kaas oo garwadeen ka ahaa in markii ugu horeysay labada hogaamiye ay kulan ku yeeshaan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia. wararka aynu helayno ayaa tilmaamaya suurtagalnimada in kulankan ay sidoo kale ka qayb galaan diblomaasiyiin heerkoodu aad u sarreeyo oo ka kala socda dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya. haddaba waxaynu marka hore aynu fiirin doonaa qaabka uu ku yimid kulankan. wararka aynu helnay ayaa tilmaamaya in tan iyo markii labada hogaamiye ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa ay sidoo kale qadka telefoonka ku wada hadleen. warar aynu madaxtooyada ka helnay ayaa tilmaamaya in tiro ilaa iyo 3 mar ay Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qadka telefoonka ku wada hadleen oo ay isla meel dhigeen inay yeeshaan kulan kale oo kafool. kulankaas ayaa lagu heshiiyey inuu ka dhaco magaalada Djibouti ee waddanka Djibouti oo ay labada dhinac u arkeen inay dhexdhexaad ka noqon karto arrintan. waxaa kulankan dabada ka riixaya dalalka midowga Yurub iyo sidoo kale waddanka Ethiopia. waxaa sidoo kale aad kulankan u doonayay dowladda waddankaasi Turkiga ayaa markii hore la filayay in kulankan uu ka qabsoomo, hase ahaatee hadda dalka Djibouti ayaa martigeliyay. sidoo kale qaar ka mid ah dalal Afrika ku yaala ayaa soo gudbiyay rabitaankooda ah in ay kulankan martigeliyaan oo ay ka qayb qaataan sidii loo dhexdhexaadi lahaa dhinacyada. laakiin in waddan Soomaali ay leedahay oo hogaamiye Soomaaliyeed oo madax ka yahay lagu wada hadlo waxay ahayd dooq ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. si kastaba kulanka ayaa la filayaa in uu u qabsoomo jawi aad u sareeya marka loo fiiriyo waxyaabaha faraha badan ay tahay in ay dhinacyadan ay ka wada hadlaan ama ay ka heshiiyaan. wararka aynu helayno ayaa sheegaya in shirkan furitaankiisa uu ka hadli doono madaxweynaha waddankaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo uu khudbada ugu horeeyo ku furi doono. kadibna waxaa hadli doona baa leeyahay madaxweynayaasha Soomaaliya, madaxweynaha Somaliland, ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia, safiirka Maraykanka, kan midowga Yurub iyo wakiilo ka kala socda dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya oo ugu horeeyo waddankaasi Turkiga. wararka aynu ogaanay waxaa ka mid ah in inta ugu badan khudbadahan looga hadli doono arrimo la xiriira iskaashiga gobolka, amniga iyo siyaasadda cusub ee geeska Afrika ee hormuudka u yihiin dalalka Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliya oo Eritrea ku jirto. inkastoo waddanka Kenya uusan dalada ay saddexdan dal sameysteen uusan ku jirin sabab la xiriira khilaafka ay isku hayaan dowladda federaalka Soomaaliya, haddana waxaa loo arkaa siyaasadda cusub ee gobolka geeska Afrika hadda mid si weyn dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka geeska Afrika dan uga. kulankan oo socon doona ilaa 2 maalin ayaa waxaa loo gudbi doonaa wajiga labaad. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada xaajood uu horkici doono ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mursal iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ninka la yiraahdo Sabriye ay la yeelan doonaan Somaliland oo ay matali doonaan ilaa 5 mas'uul oo ay ku jiraan gudoomiyaha golaha wakiilada, 4 wasiir iyo gabadha la yiraahdo Anna Aadan oo kamid ah aqoonyahanada Somaliland ka soo jeeda. wajigan ama wada hadaladan ayaa waxaa lagu xalli doonaa arrimaha siyaasadda sida deeqaha, hawada, fiisooyinka, iskaashiyo muhiim u ah labada dhinac iyo in mustaqbalka laga wada hadlo sidii arrimahaas oo dhan guula looga gaari lahaa. wajiga saddexaad ee ugu dambeeya waa kan ugu muhiimsan, waxaana la aaminsan yahay marka qaybtan dib loo dhigi doono waa midka looga hadlayo mustaqbalka midnimada. waxaa wada fadhiisan doona oo kulmi doona laba dhinac oo ay ku jiraan khubaro, odayaal, siyaasiyiin iyo bulshada rayidka. ujeedada ugu weyn ayaa waxay noqon doontaa in laga doodo 30 sano halka geediga loo rarayo ama halka la hiigsanayo iyo in laga wada hadlo hadafyada kulminaya dhinacyadan, taasoo dan u ah
Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland. haddaba wararka aynu helayno waxa ay intaas ku darayaan in dalka Mareykanka uu yahay dalka dhaqaalaha ugu badan ku bixinaya sidii Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland ay u yeelan lahaayeen xiriir rasmi ah, in laga wada hadlo midnimada ama in dhinacyadan ay midoobaan mar kale waa arrin u taala Soomaaliya iyo Somaliland. hase ahaatee wararka aynu helayno waxa ay tilmaamayaan in rajada ugu weyn ee la qabo ay tahay in miiska la saaro cabashooyinka ay dhinacyadan qabaan, kadibna loo gudbo arrimaha farsamo ay muhiimka tahay in go-aanada rasmiga laga gaaro oo ay ugu horeyso arrinta midnimada. warar ay saxaafaddu si weyn u baahisay maalmihii yaraa ee soo dhaafay waxaa ka mid ahaa in suuragal ay tahay in lagu heshiiyo siyaasad midnimo ah oo ay ku jirto awood qaybsi. awood qaybsigaas ayaa suuragal ka dhigi kara baa laleeyahay in shakhsi ama siyaasi Somaliland uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, isla mar ahaantaana Soomaali weyn ay sidaa isku raacdo oo ay sidaa Soomaaliya iyo Somaliland ay hal dal ay ku noqdaan. laakiin arrimahan caqabadaha ugu badan ee hortaagan waxaa kow ka noqon kara dalalka gobolka ku yaala sida Ethiopia ama waddankaasi Kenya, maxaa yeelay dalalkan waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya oo midowda ay suuragal ka dhigi karto in mustaqbalka ay sidoo kale Soomaaliya ay raadiso gobolada ka maqan sida gobolka Soomaali galbeed iyo sidoo kale gobolka NFD ama waqooyi bari oo waddankaasi hadda Kenya ka tirsan laakiin dhul Soomaaliyeed. marka waxaa la leeyahay waxaa suuragal ah in qodobka midnimada uu muddo dheer qaato, laakiin hadafka dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ah in ay dhigaan taariikh cusub oo ay dalka kusoo kordhiyaan, taasoo ah in Somaliland heshiis rasmi lala gaaro ama xataa meel wanaagsan oo wax laga sii wadi karo ay geeyaan sheekada ah Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland. dadka wax falaqeeya ayaa waxay noo sheegeen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xataa miiska saaray xilkiisa si dhinacyadan ay uga heshiiyaan wax walba oo ku aadan tabashooyinka. madaxweynaha jamhuuriyadda horey ayuu raaligelin buuxda waxa uga bixiyay dhibaatadii Somaliland dadkeeda loo geystay, taasoo uu ku sheegay in ay ahayd xadgudub isla mar ahaantaana uu cafis ka dalbanayo. talabadaas ayaana horey loogu qaaday in wada hadallo guuleysta ay yeeshaan dhinacyadan. waxaa sidoo kale wararka ay noo xaqiijinayaan in ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu si weyn uga qayb qaadanayo wada hadalladan. gaar ahaan waxaa la leeyahay ra'iisul wasaaraha doorka ugu muhiimsan ee xukuumaddiisa ka qaadanaysa waxaa ka mid ah in ay diyaar u tahay in Somaliland ay ka qanciso wax walba oo ku aadan golaha wasiirada ama dowladda soo socota si ay Somaliland qayb uga noqoto siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashada. sidoo kale arrintan waxay kor u qaadaysaa dadaaladii dowladda federaalka Soomaaliya ugu jirtay in doorasho qof iyo cod ay dalka ay ka dhacdo, maadaama Somaliland ay tahay dal lambadoon oo ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod oo ay dadku xaq u leeyihiin inay codayaan. marka war walba ama warbixin walba oo naga soo gaaraya kulankan ama xogta aynu ka helayno kulamadan waa kuwa positive oo u wanaagsan dhinaca horumarka iyo midnimada Soomaaliya. waxaa jira dalal dhowr ah oo aan marnaba ogolayn midnimada Soomaaliya sida dalka Imaaraadka Carabta horey waxa uu dhowr mar isugu dayay in uu kala geeyo oo uu kala jarjaro Soomaaliya isagoo maamul ula heshiiyay. waxaana la aaminsan yahay in heshiis weyn oo Soomaaliya iyo Somaliland dhexmara ay dhabarjab ku tahay xukuumadda Abu Dhabi oo isku aragtay in ay Somaliland weligeedba iska haysatay oo iyadu ay maamulinaysay. dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ay u aqoonsan tahay madaxweynaha ku-meel gaarka ee maamulka Jubbaland. war ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe lagu aqoonsaday inuu si ku-meel gaar ah u sii maamulo maamulka labada sano ee soo socota. labada sano Axmed Madoobe ay dowladda federaalka Soomaaliya u aqoonsatay inuu noqdo hogaamiyaha Jubbaland ayay sheegtay inay ka bilaaban doonto xilligii dhacday doorashadii dib isaga loogu doortay. sidoo kale war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda ayaa Axmed Madoobe loogu baaqay inuu isku keeno qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland si looga tashado dhismaha maamulka Jubbaland marka uu dhamaado waqtiga ku-meel gaarka ee loo ogolaaday Axmed Madoobe. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn cambaaraysay faragelinta ay sheegtay in dowladda Kenya ay ku hayso arrimaha Soomaaliya gaar ahaan arrimaha Jubbaland. talabada ay dowladdu qaaday ayaa waxa ay si weyn u horumarinaysaa dadaalada ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu jirto in dalka ay ka dhacdo doorasho oo hadda ay u muuqato in ay dowladdu isku diyaarinayso. dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu shir degdeg ah ku casuumay maamul goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir. bayaan ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa casuumaad rasmi ah oo ku saabsan shirka golaha amniga qaranka u fidinaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirkan ayaa ku saabsan sidii wada tashiyo ballaaran looga yeelan lahaa geedi socodka doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada iyo dhamaystirka dib u eegista dastuurka iyo arrimaha dhaqaalaha dalka. Sidoo kale waxaa jira shir hordhaca oo ku qabsoomaya aaladda la isku arko kaas oo lagu qiimeyn doono dadaalada lagula dagaalamayo cudurka safmarka ee coronavirus. Shirkan ayaa waxaa ka shaqeyn doona guddiyo farsamo oo ka kooban dhammaan dhinacyada ay qusayso madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxay adkeynaysaa baa la yiri muhiimadda shirkan maadaama uu dhamaystir u yahay guulaha siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ay wadajirka u xaqiijinayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya. Waxaana uu shirkan ejihaynayaa hanaanka dimuqraadiyadda ee dalkeena. Halka uu ka dhici doono shirkan ayaa la filayaa in dib laga soo shaac bixiyo maamulka Galmudug State, ayaana la filayaa in shirkan uu si rasmi ah u martigeliyo. Inkastoo sidoo kale ay furan tahay in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay madaxda maamul goboleedyada imaan doonaan si loo xaliyo tabashooyinka ay qabaan maamul goboleedyada. Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaatan si degdeg ugu baaqay in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay yeeshaan kulan looga tashanayo arrimaha doorashada Soomaaliya. Haddaba wararka ku soo kordhay iyo warbixinada arrimaha la xiriira barnaamijyadeena daba ayaynu ku soo qaadan doonaa anagoo si gaar ah u falaqeyn doona natiijada kulanka ka furmi doona magaalada Djibouti ee waddanka Djibouti. Si aad ula socotana daawade fadlan subscribe dhoo faraga bareelka barnaamijkan intaas ayaan ku soo gabagabay doonaa barnaamijka lamid ah ku kulmi doona waxaan idinka tagayaa sida aan midgaliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.